بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد درسيني لبعض ويان وأن كجهل ليني معناها كتابكي أن ودني وقد يضيق المقام مقامك إنه عرير النقضاء لغاية بابنا إنك عرير إنه قل نقضه لو أردنا هدان دونه الاستقصاء إن دبقله ما أثر وحي لقسو قاري عن السلف الصالح سلفك صالحها وفي ذلك أرنكاس كسوغا وقد كان ذلك أرنكاس وحوها كله دمانتي اجتهادا ددال منهم حقه ذا رحمهم الله نحرسته أرنكاس اجتهاد بإهد حقه ذا كيمي لذلك سدا درادد فإني أنو لم أقتصر كما كوبسا في اختيار الآيات آيات إن صوت دورتو على ما دلت النصوص وحنصوص تستي أو على خصوص الاستشفاء به وخاصهان لو يسوق مارتي شفاء البياء آيات كمعنى نصوص تشاكتي أو لغوش شفاء البياء كليا كما صوت كوبسا بيري لكن أوردتو waxaan soo arooriyey macahaa aayaadkan nusuustu sheegtay macooda maa yustashfu bihi wax lagu shifo dalbo wajhu nafcin oo wajhu nafci leh fii maa yuqra'u waxa lagu akhriyayana ah liajli istishfaa'i bihi in lagu shifo dalbo darteed oo min acraadi sixirka calaamadihiisa iyo walmasi masu shaydaanka ama maska jinniga masiga waxaa laga wadaa jinka ama shaydaanka taabashadiisa wal cayni iyo caynta ama cuyuunta sida Soomaali u taqaan iyo wasaa'ir al-cilali xanuunada dhammaantood al-macnawiyati macnawiga ah iyo wal xisiyati kuwa la arkayo oo qofka laga dareemayo waqad waxa dhaba ijtahadtu inaan ku dadaalay bihamdillah mahad ilaahay fi ikhtiyariha ayadaha doorashadooda mustafiidan anoo ka faa'iideysanaya من خبرة بعض الرقات dadka ruqaada oo dadka wax ku tufa khibradooda qaar kamida mustafiida anoo ka faa'iideysanay min khibrada بعض الرقات dadka wax ku tufa qaarkood alladina kuwaasoo naxsibuhum calaa khayr aan khayr u malaynayno wallahu xasiibuhum ilaahum baa xisaabinaye anoo kuwa aan khayrka u malaynayno waxyaabihii aan ka soo ururiyey وقد رقيت waxaa dhaba raqiitu inaan ku tufay bihaa aayaadkaas ama ducooyinkaas nafsii nafteyda anugu aan ku tufo anaa iska bilaabay buu leeyahy waman ixtaaja iyo ciddii u baahata ilayha iyada oo min dawi qaraabati qaraabadeyda ka midana waan ku tufay fa alfaytuhaa waxaan ka helay bifadli illaahi caza wajalla ilaahay fadligiisa dartii daahirata alathari saameynteedu inay aada u muuqatay oo laga faa'iiday bayinatan nafcigeeduna uu caddaaday wa innii anigu axtasibu waxaan ka xisaab dalbayaa al-ajra ajarka aan ku xisaabanayaa ilaahay binashrihaa inaan fidiyo ruqyooyinkaas iyo ducooyinkaas maxabatan liajli maxaba jacayl daraaddii aan u fidiyo liikhwaanii walaalahay almu'miniina mu'miniinta inaan ku dhex fidiyo oo ama qoraal ha ahaato ama iyadiyo markaas iyadoo duuban ha ahaatee inaan walaalahay ku dhex fidiyo wa xirsan iyo dadaal darteed calaa nafcihim nafcigooda aan ku dadaalaya darteed waqad jacaltu waxaan ka yeelay daalika arrinkaa isaga ah calaa 3 aqsaami 3 qaybood baan u qaybiyey min ajli an tuwaafiqa xaala kulli min alraaqi waalmurtaqi min ajli an tuwaafiqa inay waafaqdo daraaddeed xaala kulli man mid kasta xaalkiisa alraaqi ka tufaya walmurqi iyo ka lagu tufayaba xaalkiisa si ay u waafaqdo waan 3 ugu qaybiyuu leeyahy xayثu iktafaytu anigoo ku kaaftoomay fi lqismi alawal qeybta hore bidikri ruqyatin muujiza inaan sheego tufmo oo kooban min kitaabillahi kitaabka ilaahay aan ka soo ururiyey iyo wamaa habata wixii ka sugan min sunnati nabiyi sala allahu caleyh wasalam nabiga sunnadiisa wixii ka sugan aan ka soo ururiyey iyadoo gaaban muujis yacni iyadoo gaaban waa qeybta koobaad way gaaban tahay wahiya iyadu ruqyatun waaqiya waa ruqyo oo maarata waaqi'iya waa
waqaa'iya macnaha waqaa'i waxa weeye ta xanuunku kusoo gaarin inaad ka hortagto ka hortag weeyaan. wahiya taasi ruqyatun waa tufmo waaqiyatin wiqaa'iya aan dhehe wiqaa'iya oo ka hortag ah likulli muxtaajin ilayha qof kastoo qofkii u baahdana uu akhrisan karo oo ka hortag weeyaan intaan qofkii cudurkii ku dhicin oo uusan la cuyuumin ama waxaan ku leeyahay aan sixirkii lagu samayn ama aan jinkii taaban oo uusan ku dhicin waa wiqaa'iya weeyaan oo likulli muxtaajin ilayha ruux kastoo u baahan uu isku akhrin karo. kamaa sida annaha iyadoo ay tahay munaasibatan mid munaasibo ah liyurqaa biha in lagu tufo man hum duuna sini lbuluuq dadka qaangaarka da-deeda ka yar dadka yaryarkaa ilmahoo kale iyo oo yaryarkaa in lagu tufana waa munaasib likownihaa maxaa yeelay waa ahaanteeda mucjizatan mid lasoo koobay weeye oo lasoo maartay gaabiyey oo laa tahqulu aan ku cuslaanayna calayhim korkooda. huma markaa kabacdi mataa kaana ladaya arraaqi mataa goorta kaana ay ahaatee lada raaqi ninka raaqiga agtiisa mutasicun min alwaqti waqti oo waasaca hadduu haysto wa kaanat xaalata almarqi qofka lagu tufayaa xaaladiisuna ay tahay tastadcii mid u baahan waqtan mudawalan waqti dheer lilcilaaji daaweyn la daaweynayo qur-aanka lagu daaweynayo iyo adciyadaas waqti dheer hadday u baahan tahay akhada wuxuu qaadanayaa bimaa fi lqismi thaani qeybta labaad waxa ku qoran min haadihi ruqya oo ruqyadan ka mid ah qeybta labaad buu gelayaa qofku mar haddii uu bilaabaya akhriyaya mar haddii qofku uu arko qofka lagu tufayaa inuu waqti dheer u baahan yahay buu leeyahy. wahiya taasina ruqyatun waa tufmo min alqur'aani qur-aanka xaggiisa ka ahaatay iyo wamaa habata wixii ka sugnaaday min asunnati sunnada nebiga wixii ka sugnaadoo saxiixa aydan sidoo kale sidii horeo kale. laakinahaa hase yeeshee waxay tii hore kaga duwan tahay mutawasidatun waa dhexdhexaad alkami xagga cadadka ayay yacni dhexdhexaad tahay wa munaasibatun munaasibna waxay u tahay lian yarqaa biha cumuum lmuslimiin muslimiinta dhammaantood inay lagu wada tufi karo ama isku tufaan yay munaasib u tahay oo waa mutawasid weeye. tii hore sideediina uma gaabna qeybta soo socotoo dheer sideedana uma dheera qeybta labaad marka waa mutawasid marka muslimiintoo dhan inay isku tufaanna munaasab bay u tahay buu leeyahy. ama alqismu thalith qeybta saddexaad oo min aruqyati oo tufmada ahi faqad awradtu waxaan ku soo arooriyey fiihi dhexdiisa ruqyatan mudawala tufmo oo dheer oo min alqur'aani alkariim ka mid ah wa mufasalatan iyada oo weliba lagu sii faahfaahiyey min sunnati nabiyi sala allahu caleyh wasalam nabiga sunnadiisana lagu sii dabadaray oo lagu sii badiyey mufasala lagu sii badiyey ama lagu sii daray. yarqaa biha uu isku tufayo man tamarasa fii sha'ni ruqya yarqaa waxaa tufaya biha iyada midaan dambe oo saddexaad man tamarasa qofkii u bartay ama ku maaragtay u tababartay fii sha'ni ruqyati ruqyada sha'nigeeda dadka ku tababartay oo aada u yaqaan oo sabirkana u leh ayaa markaa tan ku tufay oo yar dheer tahay wey. wayulja'u ilayha fi lxaalaati almustacsiya wayulja'u waxaa loo iishaa ilayha iyada midaan loo iishaa ama yacni la sameeyaa fi lxaalaati almustacsiya xaaladaha markay adkaadaan marka xaaladdu adkaato allatii qad tastadcii taasoo u baahanaysa zamanan dawiilan fi lcilaaj zaman dheer in qofka la cilaajiyo u baahanaysa yaa la isticmaalaa oo markii qofka la yiraahdo qofkan waa garaabo ama qofkan waa culus yahay ayaa qeybta saddexaad loogu talagalay aan ugu talagalay buu leeyahay inaan isticmaalo. haadaa arrinku saas waaye. waqad qadamtu waxaan u hormariyey bayna yaday lkitaabi kitaabka hortiisa ama qeybtiisa hore bayaanan caddayn lixaqiiqati alcayni caynta xaqiiqadeeda cayntu horta maxay tahay ama cuyuun waxa soomaaliu tiraahdo wasixr sixirku muxuu yahay labadaas ayaan u hormariyey inaan sharxo horta bal cayn iyo sixir waxay yihiin iyo waduruqi cilaaji daalika iyo duruqda arrinkaa lagu cilaajin karo ama lagu daweyn karo.
kamaa dakartu sida aan sheegay tacriifan tacriif ayaan sheegay biruqyati ruqyadu maxay tahay baan idana tacriif u sameeyey oo aan iyadana aan ka hadlay wa anwaacihaa iyo noocyaalkeeda wa daabituhaa iyo daabidkeeda waxaa macnaha daabidka u ahoo yacni lagu dabrayo iyo wa shuruud alintifaaci taami shuruudda intifaaca taamka lagaga helayo bihaa iyada wal asbaab iyo asbaabta allatii ti tusaacidu saacidaynaysa oo kaalmaynaysa fi tacjiili shifaa in caafimaadkii ama shifihii soo degdego biidni illaahi ilahay idinkiisa inuu kusoo degdego yacni waxyaabaha caawinayana waan ka hadlay kamaa awradtu sida aan iyana kusoo arooriyay asbaaban 10 sababood oo yandaficu biha sharu lxaasid sharka xaasidka iyo wagayrihi keyrkiiba uu macnaha qofku isaga difaacayo wa bayantu waxaan caddeeyey bacdaha gadaasheed umuuran arrimo lam ayqan bihaa aanan xaqiijin iyada almusaab qofka lagu asiibay wuxuu yidhi wa bayantu waxaan caddeeyey bacdaha gadaasheed umuuran umuur low ayqana hadduu xaqiijiyo bihaa iyada almusaabu qofka xanuunka u hayaa lahanad calayhi musiibatuhu musiibadiisu ay ku fududaanayso oo ay ka sahlanaanaysona waan caddeeyabiyo umuuraha marka 10kaana waa in aada loogu maaratay waa in aada loo fiiriyo arrimahaasna ko huma markaa kabacdi atbactu waxaan raacay daalika arrinkaa waxaan raaciyey biirshaadaat caama yacni hanuunin guud ama maaragtay tilmaamo guud irshaadaat caama tilmaamo guud baan raaciyey ra-aytu aan arkay alxaajata ilayha in danta in looga baahan yahay maasatan si aada loogu baahan yahay ra-aytu waxaan u arkay alxaaja in loo baahi qabo ilayha iyada maasatan si macnaha adag loogu baahan yahay oo aada loogu baahan yahay kamaa sida buu leeyahay iyaduna markaa kabacdi kamaa alxaqtu sida aan ugu daba daray bilkitaabi kitaabka 3 mulaxaqaat 3 mulxaq baan dabageliyey bayantu aan ku caddeeyey fil awali minhaa midka hore subul alcilaaji bilmaa'i wasidr subul alcilaaji bilmaa'i biyaha sida laysugu daaweeyo iyo wasidri iyo geedgobka caleentiisa iyo wazayti zaydka ama saliidda zaytuunka walcasali malabka sida laysugu daaweeyo iyagana ayaan gadaal kaga daray buy wa awradtu waxaan ku soo arooriyey fi thaanii mulxaqa labaad midka labaadoo aan raaciyey adkaaran adkaar yataxasanu biha almuslim muslimku uu ku dhufays qaadanayo fii yowmihi wa leylatihi hameenkiisiiyo maalintiisaba uu kaga dhufays qaadanayo ama uu kaga maaragtay iskaga celinayo min shari shayaadiini alinsi waaljinni sharka shayaadiinta insiga iyo kuwa jinkaba iyo wa kaydihim dhagartooda iyo shirqoolkooda muslimku uu iskaga difaacayo oo marka uu akhriyo uu kaga badbaadayo ama alakhiiru midka ugu dambeeyo mulxaqa aho minhaa iyada ka mid a faqad dakartu waxaan sheegay fiihi dhexdiisa bacda alacraadi calaamaadka qaarkood allatii taasoo tactari almasxuur qofka la sixray ka muuqanaysa awil maciin ama qofka cayntu ku dhacday oo la caynaystay oo la cayuumay ka muuqanaysa ow man bihi masun ama qofkii masul jinni jin uu taabtay ama maaragtay jin qaba uu isagana ka muuqanaysa wadaalika sababtuna anu qoray ama aan ugu sheegay halkaasna waxa weeye liyakuuna raaqi qofka raaqiga ah dadka wax ku tufaa calaa basiirati min amrihi inuu arrinka uu ka shaqaynayo basiiro u yeesho oo uu macrifo iyo aqoon u yeesho basiiradu waa macrifo iyo aqoon inuu u helo oo uu maaragtay wax badan ka ogaado mutashabithan fii xaali lmarqi mutashabithan anigoo ku fogaaday fii xaali lmarqi xaalka qofka wax lagu tufayo qabla shuruuci biraqyihi inta uusan dhexgelin tufidiisa qofka maaragtay yacni marqiga ah wax lagu tufayo xaalkiisaan aada ugu dheeraaday buu leeyahay haada sidaas baa macnaha arrinku yahay waqad awradtu waxaan kaloo soo arooriyey aayaadka aayaadka ruqyada ama wax lagu tufo bixasbi mawduucaatihaa anigoo mawduucaadkeeda sida ay yihiin u dabagalay laa bitartiibi suwari alqur'aan qur-aanka suuradahooda sida ay u kala horeeyaan uma raacine waxaan u raacay mawduucaadka siday isu leeyihiin mawduuc aayaduhu
aayadaha cadaabka ka hadlayo wax lagu gubayo aayadaha maaragtay yani aayadaha noocaas mawduuc kuwa cadaabka kuwa caynta ka hadlaya kuwa sixirka kusoo arooray kuwa mawduuc baan isugu xiray laakiin qur-aanku isugu xigxigo aayadaha isuma dabagelin buu yihi uma tartiibin fajacaltu waxaan ka yeelay aayaat alxamdi aayadaha mahadinta wathanaa'i ammaanta mutataabica kuwa isku xiga wakadalika sidoo kale aayaat ruqya aayadaha ruqyada laysaga tufo min alcayni wasixri caynta iyo sixirka iyo gayra dalika wixii macnaha kuwa gayrkoodaba iyagana way isku xijiyey baxaysu iyada oo yatamakanu raaqi qofka wax tufayaa uu u sowroobi karo min tawjiihi tarkiisihi cala daa in loo jiheeyo sida uu cudurkaas awoodda u saarayo sida cudurkaa uu awoodda u saarayo ama uu u beegsanayo baxaysu halkaasoo yatamakanu ay u suuragelayso arraaqika wax ku tufaya min tawjiih in loo jiheeyo tarkiis cala daa xanuunka inuu macnaha uu maaragtay diiradda saaro tarkiisahu inuu diiradda saaro cala daa-i xanuunka qofkaas inuu diiradda ku saaro kamaa ana daalika sida arrinkaasi yuciinuhu ugu kaalmaynayo calaa istidkaariha hadhow inuu gadaal ka xusuusto aayadkaa markuu akhriyo marka dambe inuu maskaxdiisa ka xusuusto litaraabudi mawduucihaa mawduuceeda isku xiran darteed falaa yajidu ma helayo bacdu markaa kabacdi xaajatan dan wax ah litilaawatiha min hada alkitaab kitaabkan inuu marka dambe ka akhriyo wax dani uguma sugnaa mar hadduu dusha ka qabto sida uu aayadaha say isu xigxigaan say isu leeyihiin mawduuc ahaan buu maskaxda ku qabanaya de qofkaasina qof qur-aanka iyo tafsiirkiisa iyo macaanida aayadaha fahmaya inuu yahay weeye qofka dadka wax ku tufaya waman shaa-a ninkii doona qaraa'ataha inuu akhriyaa bitartiibi lmasxafi masxafka say u tartiibsan yihin isugu xigaan faqad awradtu waxaan isagana usoo arooriyey ruqo kale tufmo kale oo muratabatan oo isdabagashan bitartiibihi fii kitaabi alruqyati sharciya sida aan ugu tartiibiyey kitaabkayga aan ku magacaabay alruqyatu sharciya sida aan ku magacaabay sidaas kuwa kaasaa isku tartiibsanoo aayaduhu say isugu xigxigaan oo suuraduhu isugu xigxigaan aan u qoray buu leeyahy haadaa arrinku saas weeye waqad tayasara waxaa sahlanaaday tasjiilu haadihi ruqyati inaan duubay ruqyadaas sawtiyan si sawd ah liyatasannaa say ugu fudaadaato uma u sahlanaato lilmardaa dadka xanuunsan alistimaacu ilaahi inay dhegaystaan bikhaasatin khaas ahaan minhum iyaga man laa yuxsinu alqaraa'a khaas ahaan dadka aan akhriya aqoonin wax raajiyan allah anuu ilaahay ka rajaynaya tacaala korhaya an yanfaca bihaa inuu ku anfaco iyada cibaadahu addoommadiisa inahu ilaahay samiicun kii maqlo weeye ciddii barida qariibun kii dhow weeye ciddii barida mujiibu ducadana ajiiba wasala allahu allah u naxariiso wasalama nabadgeliyo calaa cabdihi addoonkiisii wa rasuulihi rasuulkiisii muxamedin ahaa alraxmati raxmadii almuhdaat ee la hadiyeeyey waannicmati nicmadii almustaad ee lasoo shubay wa calaa aalihi aalkiisii wa saxbihi asxaabtiisii waman istanna iyo dadkii mara bisunnatii sunnadiisa dadkii sunno ka dhigto dariiqiisii mara wahtadaa ku hanuuna bihudaahu hanuunkiisii ilaa yowmi ddiin ilaa maalinta qiyaamada halkaas marka muqadimadii baa ku dhammaatay oo aada ku fahamtay ama haddaad dhegaysato aada ku fahmayso kitaabkii iyo sida loo qoray iyo ducada iyo qur-aankii iyo aayadihii iyo sida u kala qaybsanaayeen iyo ruqada 3 qaybood oo soo socota sida loo kala isticmaalayo iyo sidii culummadii ay maaragtay ugu ijtihaadi jireen mararka qaarkood inay ku tufaan dadka aayado iyo axaadiis markaas iyagu ay doortaan oo aan si gaara daliil ugu soo aroorin in laysku tufo iyo wixii la mid ah fawaa'id fara badan aynu ka soo faa'iidnay marka hadda wuxuu bilaabayaa sheekhu xaqiiqatu alcayni wasixri in sha allah darsigeena dambuu noqon doonaa sala allahu wasalama calaa nabiyina maxamed wacala aalihi wasaxbi wasalam ajmaciin